أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ومحمود سيد خليل الحسري ومد كمid aha quraan akhriyayaasha ugu akhrinta wacan muslimiinta haddii uusan ahaynba midka koowaad waxa uu dhashay 1917 isagoo ku dhashay tuulada Shibrunamla ee gobolka galbeedka ee wadanka Masar hooyadiis waxaa la yiraahdaa Farxa isaga oo 4 jir ah ayuu bilaabay barashada Qur'aanka Kariimka waxa uuna idleeyay isaga oo 8 jir ah waxa uu mar waliba aadi jiray masaajidka Al-Ahmadi ee ku yaala deegaanka Danda ee wadanka Masar waxa uu lahaa cod aanay jirin wax lagu mataalo nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Azhar ayuu ku biiray waxa uuna bartay cilmiga qiraa'aadka Qur'aanka Kariimka 1944 waxa uu kaalinta koowaad ka galay tartankii ay qabatay idaacaddii Masar waa qofkii ugu horeeyay ee duuba Qur'aanka oo dhameystiran 1938 ayuu guursaday Sacaada Maxamed waxa uu caruurtiisa ku dhiirigelin jiray barashada Qur'aanka Kariimka mid kamid ah caruurtiisa ayaa tiri aabe waxa uu nasiin jiray abaalmarino galab kasta waa haddii aan wanaajino Qur'aanka Khaliil waxa uu duubi jiray Qur'aanka isaga oo aan wax mushaarah ama lacag qaadan كاتب لا أتقاضى أجرا على تكفيل المصحف المرتل من هو هذا الرجل الله يرحمه ويحسن إليه الشيخ محمود خليل الحصري شيخ خليل ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay ee Qur'aanka ku duuba riwaayadda Xafs 1961 محمود خليل الحصري ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay ee Qur'aanka ku duuba riwaayadda Xafs 1961 sidoo kale 1964 waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay ee Qur'aanka ku duuba riwaayadda Warsh 1968 waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay Qur'aanka ku duuba riwaayadda Qaaluun 1969 waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay ee Qur'aanka u duuba qaab meeris ah Sheekh Maxamuud Khaliil Al-Xusari ayaa 1977 waxa uu Qur'aanka Kariimka ah ka dhex akhriyay xarunta golaha guud ee qaramada midoobay 1978 ayuu Qur'aanka ka dhex akhriyay qasriga boqortooyada wadanka Ingiriiska ee magaalada London sidoo kale waa Qur'aan akhriyay ugu horeeyay ee Qur'aanka Kariimka ka dhex akhriyay aqalka cad ee Mareykanka Sheikh Khaliil ayaa soo qabtay xilal aad u fara badan sida inuu 1961 noqday sheekha ugu sareeya Qur'aan akhriyaasha wadanka Masar Maxamuud Khaliil Al-Xusari xilli uu baxay booqashada muslimiinta Hindiya iyo Pakistan iyo sidoo kale akhrinta Qur'aanka Kariimka shirki Iqra halkaasina waxaa joogay madaxweynihii wadanka Masar Jamaal Cabdinaasir iyo madaxweynihii Hindiya Jawahir Lal Nehru Sheikh Khaliil Al-Xusari ayaa booqasho ku tagay wadanka Faransiiska waxaana fursad loo siiyay inuu halkaasi Qur'aan ka akhriyo waxaana halkaasi ku islaamay dadyow fara badan oo Faransiis u dhashay kadib markii ay maqleen Qur'aanka Kariimka waxaa loo magacaabay 1966 la taliyaha wasiirka awqaafta arrimaha diinta wadanka Masar gaar ahaan dhanka arrimaha Qur'aanka 1966 waxaa loo doortay inuu madax ka noqdo midowga Qur'aan akhriyayaasha caalamka Islaamka sidoo kale 1967 waxa uu noqday gudoomiyaha ugu sareeya ee ururka Qur'aan akhriyaasha adduunka madaxweynihii Mareykanka Jim Carter ayaana ka dalbaday Khaliil Al-Xusari inuu u hadiyeeyo kitaabka Qur'aanka Kariimka Sheikh Khaliil ayaa hantidiisa 3 dhig ka mid ah sadaqeeyay waxaana jirta hay'ad la yiraahdo hay'adda Khaliil Al-Xusari ee qaabilsan u khidmaynta diinta iyo arrimaha bulshada ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور